Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada Somali Youth Scholars. haddii ay tahay dabcan markii koowaad aad soo booqatay youtube channelkan soo dhaweey aan ku leenahay walaal. youtube-kani waa youtube channel aan ku caawino dhalinta Soomaaliyeed oo aan ugu soo gudbino deeqada maanta ka jira dunida dacaladeeda, greenka, lottery-ga iyo waxyaabaha kaloo la midka ama bacd insha Allah maanta mowduuc aad u muhiim ah isla eegi doona oo ku saabsan dhanka waxbarashada, shahaadooyinka iyo warqado qaar oo muhiim laga rabo inaad diyaarstid. isbuuc hore sida isla wada ognahay haddii aad hore u daawanin video ayaa jira oo aan ku wareysanay walaal Soomaaliyeed Maxamed oo kamid ah dadkii ku guuleystay DV lottery-ga laakiin uu suurtagelin inuu baxo oo loo diiday fiisaha sababtoo keentay ay ahayd yacni shahaado oo qaldan uu la tagay meesha. sida wada ognahay yacni dowladda Soomaaliya yacni waxaa jira maamul goboleedyo badan oo kamid ah Puntland oo shahaadooyinkeeda yacni imtixaan gooni ardayda ay ka qaadato oo shahaado gooni ardayda siiso. Maxamed wuxuu kamid ah dadkaas Puntland ku koro ku noolaa oo shahaadada dugsiga sare xagga ka qaatay yacni shahaado federal Soomaaliya aanan helin taasoo keentay in fiisaha loo diido. يعني شهادة فدرال الصومال موسى الله تجن وحلو تجن شهادي فدرالك شهادي مملكة جولات كبنتلان أو قصة بتاع إن في زهلو ديدو إنك الصو جانس لسية وسنسو بدلين مركا ندا سنتان وجود جلين وحن إسلاء جينا ورقة ده جرتان ده يعني أو ضدك بدنا dugsiga sare ardayda yar dugsiga sare ka soo baxo badan la weydiiyo waliba dadka Kenya ku galo interview ayaa warqadan badan lagu xujeeyaa inta ugu horta Kenya warqadan la iskaga baahan yaani Ethiopia kama warahayo Djibouti sidoo kale kama warahayo maanan maqlin wax noocaas ah warqadan waxa waaye waa warqad yaani shahaadooyinka dugsiga sare وقاعدة وزارة وحبرشة كنية جينيسا وحيكون سو سمينا verification يعني ويسو حقيقينا إني شهادة وحصحتها يجرتو إني قلت يعني أرضيها تا جامعة صومالي إني كتغاني عن جامعة حق وحبرشو آذو والو حجية إني عن شهادون كو قادة دوكسيك سرية وزارة وحبرشة كنية جينا سو كنترولان وحن إني وحقالدين إني صحيين لوغادا مركا وزارة وحبرشة مركا شهادة فدرال صومالي سو كنترولشو نوحيكو سينا ورقدان يعني أو شهادي وليغنتو شهادة دكتور سركين وديجنت ورقد سيدا أنا وقتاي Kenya National Qualifications Authority Certificate of Equation of Qualifications ماشان serial number أنا قرية يو مجا قفك إيماشان سلوك المجا قفك وقرن أنا قرية then ماشان هقولن thank you for your application date وقتك أعد ستشاهدون كقدرتين لجوسون كنترول تاريخ دي أنت كقرن شهادة بحياة أو كسب بحث by the Minister of Education, Culture and Higher Education Somalia and then in accordance with the Kenya National Qualifications Framework KNQF Act number 22 of 2014 and KNQF Regulation 2018 your qualification is equated at KNQF level 2 secondary certificate KCSE mean grade C+ يعني شهادة هذه إذا يعني لا إيجاي framework وحبرشة الكينيا your qualification is equated يعني وح يعني same لقدي يعني KNQF level 2 يعني شهادة دكسي سرو level 2 secondary certificate أو KCSE أو grade C+ يعني شهادة أبدته لقوا بدلين عن شهادة وكينياتي ألوسي يعني ساسا ودقنتا يعني وحا اسكومد لغدي لابد شهادة then grade bounty يكون فيرين يكون قرميش إذا فير 9 framework national qualification framework Kenya system كو حبر شهادة فير 9 maybe مثلا English 72 قف كان B negative أقول maybe 72 Somali maybe إن إتاي C إتاي مركا Kenya framework هانو كو فير 9 then شهادة نحاول قف كانوا C+ لقى Somali إنك إيه شهاداني C negative إنك إيه لقياه so then والقدر نكسوسينا يعني أنا هاب شهادة دين شهادة أنا قاعد نسا وحبرشة وبان تكين جامعة والقدر أنا لتجا سي شهادوين كلا مركا سفارة كينيا وحي سمينة
warqada inay kuu direen markay kaa baahantay inay waxaan shahaadooyinka waati inay wax la ogyahay ay inay saxiix yihiin inta dowladda Kenya ay ka warqabto marka warqadani yani warqadna aan dhaho shahana aan dhahno badana horta waxaa la soo weydiiyaa ardayda dugsiga sare ka soo baxday oo development ku guuleystay camal oo meesha safaarada tagay dadna way jiraan horta oo shahaado yani federal caadi Soomaali watay oo la weydiin warqadan interviewgooda si wanaagsan u maray dadna la weydii way jiraan iyagoo shahaado federal watay Soomaaliya haddana waxa warqadan soo qaadan leh marka nasiib waa adii ku weydiin waa soo qaadanay mar walba waxa ogaata adii hadda shahaado federal watid oo wasaaradda waxbarashada Soomaaliya timbraheeda wasaaradda arrimaha dibadda timbraheeda ee kugu dhigsan yani no worries yani waxa ka walwaleysad ma jirto waxa way shahaado lagu kalsoon yahay wadata yani wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda waxbarashada timbraheeda kugu dhigsan adii ku weydiiyaan waxa waa soo qaadanay warqadan hadii ku weydiinina waxa way no need yani ma u baanid in aadid marka adiga hal wada mar walba ku badbaadi karta oo ah in shahaadada federaalka Soomaaliya ay haystid midaas muhiim ah hadda Puntland joogto hadda Somaliland joogto يعني شهادة سنة شيء اسكو ضيع هذا هيلين يعني كم ده يعني مهيلس جرين كر كم ده يعني أما كين نبكي جري أنت سواي هذا كبد جيبوت هذا هذه كرتيد هذا إثيوبيا هذه كرتيد هذا مشاكل جوكت أو كمر كرتيد واقع ما حكوسه الجامعة هذا كوسه ضدك جامعة سود مية ورقدها ملوه بهاي ورقدها قف هذا جامعتك صبح أو ورقدها لو حجة يعني ما أنا لكن ضد بدن أو مرة انترفيو أو أجر أوريستي ير بلاس من جامعة بلاس من صبح مقدش كتالي أوريستي سو كلا نير إيميل ويصدر تايرك سو بروسيس كيس بيسكو مري انترفيو يسنلو ذاكي أوريستي هبين نحضر صالة هالديركاس وحول يعني ورقد نوعا اللي مويدين شهادة نوعا ورقد اللي يقوم حجون شهادة جامعة بلاس من الصبح ذاوتي وزارة وحبرشادي وزارة رمح ديوتي مبرايد كل جنات دان والله تقول wax weydii maanan arkin marka dadka Somaliland jaamacadaha ku yaala ka soo baxay Puntland camal Jubaland anyway part of Somalia waxa way wax shahaadad jaamacad ka soo baxay warqadan loo xujinay maanan arkin yani maybe laga yaabo in maybe Somaliland hada jaamacadii ku yaal ka soo baxda oo wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland timbraheeda iyo wasaaradda arrimaha waxbarashada timbraheeda oo ku dhigsan Somaliland maybe caqabadina ku keen karta laakiin hadda kuma dhihi karo waxas problem ay ku keenayaan ani warna kama information kama in case hada soo ogaad insha Allah waan la soo wadaagi doona idinkana wax raadiya dad wax Somaliland ka tagay wareystadii wax noocan lagu baahan laakiin kama warhayaan qof Somaliland ka tagay oo shahaadadiis jaamacad xaq ka soo qaatay oo yani loo diiday wax information kama hay laakiin insha Allah waa soo ogaan doona marka general ahaan xogta guud warqadan badan dadka dugsiga sare ka soo baxay ee qusaysa la weydiiya marka insha Allah sida rajayna waxa way problemkan waxa warqadan la isweydiinayaan waxay ka jireen sida dareensane Kenya mid kale jirtan waxa waa garan leh Soomaalida meeshaas kale waxay waadaan Kenya kale iyadoo ujeedi Ethiopia Djibouti like way wax soo kar ma garanay in Kenya bis la aado marka waxay aato ilaahay tala saaro waxaan hadii aad calafuled inay heshid waa helaysa hadaan calafulahayn waxa way mehelis marka waa halaas insha Allah موضوعنا ما انت كو كاننا وحي سؤال فضلنا قبتد قيبت هوس يورب كومنتيغا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته